dee horta akhrisku marka la idhaahdo khasaaro badan ma laha laakiin waa laga yaabaa in khasaaro laga helo. Marka la idhaahdo dhiirigelinta waxaanu sheegnay in teknolojiyadda iyo waxbarashadii kobcday ay qayb ka tahay. Dowladdu runtii door yacnihii gaara oo ay arrintaa ku leedahay shakhsiyan anigu yacnihii ma arag, laakiin way jiri kartaa yacnihii dhiirigelin iyada lafteedu qayb ay ka tahay. kulanti aboon daawadayaal meel walba daafaha dunida ka sugantihiin kuna soo dhawaada barnaamijka dhalinyarada oo uu toddobaadkan noogu marti yahay cabdirasaaq sandheer oo ka mid ah dhalinyarada reer somalilan. barnaamijka toddobaadkan waxaanu kusoo qaadan doonaa bal habka dhalinyarada iyo akhriska siday isku yihiin. cabdirasaaq kusoo dhawoon cable t v. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. dhammaan honkeybar t v waanu mahadnaqayaa waanu ku dhawahay markii koowaad inaan honkeybar imaado. aad baad mahadsantay labada dolar soo dhawow. su-aasha kuwaad haddaan ku weydiiyo cabdirasaaqow bal siday isku yihiin dhalinyarada akhriska maanta siday isku yihiin? dhalinyarada iyo akhriska marka laga hadlayo gaar ahaan dhalinyarada soomaaliyeed iyo akhriska dhawaanahan dambe waxaa aad iyo aad usoo batay fuf akhriska ku saabsan. anugu shakhsiyan markaan ka bilaabo waxaan odhan karaa 2018 wixii ka dambeeyey ilaa 23 hadda aynu marano muddada 5 sanaa waa xilligii ugu badnaayay dadka akhriska iyo mataqaanay wax qoraalka ay dadkeenu aad u dhex galeen. dhalinyaradu waxaynu aragnaa inta ugu badan iyaga oo wax soo bandhigaya ama buugaag iyo wax qoraya noocay doonanba ha ahaadaane. halkaa marka waxaynu ka dareemi karnaa dhalinyaradii inay wax akhriyeen, akhriskiina intii hore uu ka badan yahay. marka waxaan odhan karnaa akhriska iyo dhalinyaradu waayada dambe aad bay isku barteen, aadna ugu soo badanaya. tusaale kooban haddaan soo qaato waxaa laga yaabaa 2010 ilaa intii lasoo gaarayay inayna jirin waxaan hadda buug oo lasoo bandhigayo oo la gorfaynayo oo meelo kala duwan lala tegayo oo hataa buug feerada iyo waxyaabaha la midkiina jirin baa laga yaabaa. laakiin hadda markaad eegto aad bay u bateen. de waxaana waxa rangarinaya ee wadaa waa dhalinyara. marka waxaynu odhan karnaa dhalinyaradeennu aad bay waayadan dambe ugu soo badanayaan akhriska. waxyaaba badan marka way dhiirigeliyeen. waxyaabaa dhiirigeliyey waxaa ka mid ah dadkeennii iyo waxbarashadii iyo aqoontii tixgelin weysiisiiyey iyo teknolojiyadii iyo dhalinyaradii u fudaydisay in waxyaabo badan waqtigii hore aan la heli karin hadda ay helaan. markaa shakhsiyan waxaan isleeyahay dhalinyarada iyo akhrisku iminka aad bay isku barteen, aadna ugu soo badanaya. waxaan rajeynaya insha allah markasta inuu kasii bato. waa hagaag bal xal iyo laba maxaad sooran kartaa xukuumadda soo dhiirigelisa akhriska? marka la idhaahdo dhiirigelinta waxaanu sheegnay in teknolojiyadda iyo waxbarashadii kobcday ay qayb ka tahay. dowladdu runtii door yacnihii gaara oo ay arrintaa ku leedahay shakhsiyan anigu yacnihii ma arag, laakiin way jiri kartaa yacnihii dhiirigelin iyada lafteedu qayb ay ka tahay. waxaan ka xusi karnaa dhalinyaradu marka imika tusaale ahaan oo kale waxay inta badan iyadu samaysay oo imika soo badanaya iyaga laftoodu librariyadii 6 gobol ee dalka inta ugu badan waxaa hadda la qorsheeyey ama yacnihii laga wadaa library. librarygii marka magaalada ugu weyn gobolka laga dhiso qayb weyn buu ka yahay. intaan xasuusanahay meelaha laga dhisay waxaa ka mid ah Hargeysa iyo Berbera iyo Gabiley iyo Booramo dhammaad ku dhawaa 4taas ayaa ugu weynaa. Burcay iyo Sanaag iyo Sool kuwaas way harsanaayeen laakiin qorshaha way ugu jirtay. marka anu shakhsi waxaan isleeyahay librariyadaas oo kale qayb weyn ayay ka yihiin in xukuumaddu ay mataqaanaa dhismayaal u samayso goobo u diyaarsan akhriska, goobayiga laftooda wax lagu soo bandhigi karo qayb bay ka yihiin. waxyaabaha kale ee xukuumaddu ay kaga qayb qaadan karto aynu odhan karno yani way ka gaabisay. waxaa ka mid noqon kara dhalinyarada inay ka caawiso inay dhalinyaradii helaan yacnihii meelaha ku habboon inay wax ku akhriyaan. librariyadii marka laga yimaado yani meelo kale oo xaggii iskuullada oo kale inay meel uga samayso, jaamacadii oo kale meel inay uga samayso, meelihii laftoodii dadku markay yacnihii goobaha kale iska fadhiyaan in laftoodii iyaga laftooda ay yani meelahaas kale ku akhrisan karaan. waa meelahaan isleenahay qayb bay markaa ka noqon kartaa. dhiirigelin kale la way jiri kartaa. waxaan ka xusi karnaa markaa dhalinyaradu markay hal abuur la yimaadaan qaarkood in xukuumadda lafteedu ay waxoogaa dhiirigeliso inkastoo ayna badnayn odhan karno way yar tahay haddana dhiirigelin qayb bay ka tahay. waa hagaag bal hal iyo laba maxay yihiin caqabadaha dhalinyarta ka haysta akhriska inay wax akhriyaan maxay yihiin? marka la idhaahdo akhriskii dee basaan soo sheegnay runtii maadaama inagu cusub yahay baan odhan karno oo dee waxa la akhriyaa hadda uu kooban yahay dadkuna imika ay soo baranayaan ay fiican yihiin. caqabado badan baa runtii dhalinyaradii iyo guud ahaan ciddii wax akhriyaysa noocay doonanba ha ahaadaane haysata. waxyaabaha aan ka xusi karo waxaa ka mid ah
dadkeenu jeebkooda aad buu iskaga liitaa wuu hooseeya qofku markuu doonayo inuu wax akhriyo wuxuu u baahan yahay yacnihii wax ku habboon wax ka akhriyo wax ku habboon markaan leenahay buug buu noqon karaa majalad bay noqon kartaa meel kaloo waxay noqon kartaa qofku uu ka heli karo waxaan uu akhriyayo marka waxaa aada u yar yacnihii qofka jeebkiisii iyo wuxuu iibsanayay ayaan islahayn marka waxaa noqon kartaa qofku inuuna heli karin buugaag badan oo bilaasha uu ku helo inayna jirin markaa qodob ku xiga waxa weyn caqabada noqon kartaa buug badanoo waxaa jirta qofku uu baahan yahay laakiin dalka uuna ka heli karin iyaga laftooda u baahan in mataqaanaa xal laga gaadho qofku siduu ku heli lahaa way markaad eegto buugta aqoonta oo kale ee laamaha aqoonta la xidhiidha tusaale ahaan kuwa la xidhiidha caafimaadka kuwa la xidhiidha engineerinka kuwa la xidhiidha beeraha kuwa la xidhiidha culumta kala duwan ee aqoonta marka laga yimaado in koobana jaamacaduhu soo qaataan ama librariyada taallo oo muddo horaa kuwii u dambeeyey dishanadii ugu dambeeyey dadkeenu inta ugu badan ma helaan taasina waxay noqon kartaa markaa in la helo dowlad adag oo yacnihii buugta noocaasa keenta ama shirkad weyn oo buugtii loo baahnaayo jaamacadaha lagu dhiganayay ee fakartiyadu qaadanayay inay dadkii helaan oo kuwii ugu dambeeyey weliba waxaa laga yaaba dad iminka librariyada jaamacadaha eegto ama iskuullada haddaad eegto waxaad arkaysaa buug laga yaaba in 20 sano ka hor ama 10 sano ka hor laga guuray in dadkeenu ay haystaan tusaale ahaan 2000 buug la qoray imika qofkii librariga kasoo qaadanaya akhriya laakiin waxaa buug 23 la qoray qofkii inay helo marka taasina waa caqabado dee qofkii yacnihii ma helayo buug available oo meesha markaa ka helo qodobka kale isna muhiimka waxa weeyaan dalkeena markaad eegto akhriska iyo qoraalka yani dadkeenu uma jajabna waxaa laga yaabaa qofku hadduu heli waayo environment ku habboon inuu wax ku akhriyo inuu waayo tusaale hadda soo qaato waxyaabaa qof ku dhiirigeliyay inuu wax akhriyo waxaa ka mid a qofka oo asxaab hela waxaa loo yaqaano qiraa'at ijmaaciya ama mataqaanaaye hambuug refuska loo yaqaano collegiisku dadku isku xirfadii ay qalba meel isku yimaadaan qofku hadduu helo yacnihii waxyaabaha noocaasa dhiirigelin weyn buu markaa ka helayaa laakiin tiina ma jirto way nagu koobnaanaysa oo aad bay markaa inoogu yartahay marka inahaas ayaan isleeyahay caqabaduhu way jiraan kuwo kala badana marka way jiri karaan waayahay sidoo kale bal hal iyo laba faa'iidooyinka akhrisku leeyahay maxaa ka mid ah xubsaqo runtii faa'iidooyinka akhrisku leeyahay waa faa'iidooyin aad u badan wey waxaan ka xusi karaa anigu shakhsiyan akhrisku waxaa la yidhahdaa qofka wuxuu u furaa albaabo uuna qofku marka uu joogo uuna arkayn tusaale ahaan waxaa laga yaabaa qofka oo gurigiisa ku nool dalkiisa ku nool aan dhaafin inuu og yahay waxyaabo badan oo caalamka hore uga dhacay waxyaabo badan oo hadda ka dhacaya waxyaabo badan oo qofku una lug ahaan iyo indhahaan ku arki karin inuu qofku arko oo buugtaa ka daalacdo waa qodobka labaad qof markuu wax akhriyo waxaa furmaa maskaxdiisa furfuranta qofku wuxuu la yimaadaa talooyin macquula qofku wuxuu la yimaadaa inuu wax falanqeeyo qofku wuxuu la yimaadaa in xaalado sida ay u socdaan oo aragti ka dhiiban karo qof markaa maskaxdiisa ayaa ku dhisanta qodobka ku xiga qof markuu wax akhriyo wuxuu noqdaa qof critical ama qof wax naqdin kara wax diidi kara wax dooni kara qof yacnihii noloshiisa jaayin kara nolosha cidda uu ka mas-uulka yahay jaayin kara nolosha haddii uu goob ka shaqeynayo goobtaa jaayin kara nolosha haddii uu dal maamulayo dalkaa jaayin kara yani qofku wuxuu noqdaa qof isku toosan oo jafjafan marka akhrisku qofka uu jafjafaa yani waxyaabo badan oo uu doonayo wasiiladuu ku gaari lahaa markaa wey qodobka ugu weyn laga dhexlaana waxa weeyaan akhriska qofku inuu ku barto waxyaabo uuna hore u ogeyn marka akhrisku si guud oo looga dharagsan yahay intaas ayaan ka xusi karaa shakhsiyan waay waxaanu xusnay faa'iidooyinka akhriska bal khasaaraha isna inaanu xusno miyaan ahayn oo maxaa khasaarihiisa ka mid ah akhriska dee horta akhrisku marka la idhaahdo khasaaro badan ma laha laakiin waa laga yaabaa in khasaare laga helo waxaan soo ka xusi karnaa qof markuu wax akhriyo waxa uu akhriyay haduuna iska shaandhaynin oo uuna iska eegin waxa uu akhriyay waxa ay yihiin tusaalahaan qofku wax maskaxdiisa gelaya hadduu iska shaandhayn waayo uu eegi waayo waxa ay yihiin waxa laga yaabaa yacnihii qaab ka duwan qaabkii uu doonayay ama faa'iidadii uu doonayay cagsigeeda inay noqoto tusaale ahaan waxyaabaha la xidhiidha caqiidada iyo diinta waxyaabaha la xidhiidha mataqaanaa qofku si uu araggiisa adduunyada waxaa laga yaaba waxyaaba badan oo qofku uu akhriyey in ay yacnihii si qaldan qofku uu fahmo waxaa kaloo iyadna meesha iman karta qofku haddii uu xaddhaaf yacnihii uu ku sameeyo oo kale waxaa laga yaabaa wax uu doonayay waxaan ahayn yani inuu kala kulmo marka qodobka ugu weyn aan odhan karna waxa weeye qofka oo yacnihii dariiqada si qaldan uga leexda waayo waxaa la idhahdaa waxay odhan jirta soomaalidu qof tusaale ahaan oo kale markuu wax akhriyo wixii uuna iska eeginba wuxuu yahay waxa laga yaabaa qofkii wuxuu doonayay waxaan ahayn yani inuu kala kulmo markaa khasaara gaaloobo diinta ka baxo
tusaale ahaan inuu hadduu caafimaadka oo kale si qaldan u bartay dad ku laayo in guryihii ku dumay hadduu injineering bartay yani waxa weeye markaa khasaare ka iman kara markaa qofkii iyo sidii uu waxan ula tacaamulay markaa khasaare noqon kartaa markaa wax akhriyaan leeyahay waayo aayaddii qur-aanka ugu horreysay ilaahi subxaana watacaala waxay ahayd iqra bismi rabbika aladii khalaq waxayna ku dhammaanaysay iqra rabbuka alakram yani ilaahi subxaana watacaala aayaddii ugu horreysay wax akhriya ayuu noo soo dejiyey carabta waxay tidhaahdaa ummatun iqra laabudda an taqra ummad la yidhi wax akhriya waa lagaba maarmaan inay wax akhrido marka dhalinyarada waxaa leeyahay wax akhriya waxaad akhriyaysaana isku daya inaad iska shaandhaysaan oo inaad iska wada qaadanin waxaa laga yaabaa qofku waxyaabo badan oo akhriyayo qaarkood inay noqdaan mataqaanaa wax beena qaarkood inay noqdaan wax qofka xadkiisii ka tallaabiya qaarkood inay noqdaan qof waxa uu doonaya waxaan ahayn qofka gaarsiiya marka dhalinyarada waxaa leeyahay wax akhriya waxaad akhriyaysaana iska shaandheeya at the same time-na wax qora oo marka aad wax akhridaan wixii dhitay iyo qoraalka sameeyo haddii aad adigu akhrido kelidaas u koobto waxaa laga yaabaa in adigu la dhimato laakiin aad qoraal samayso waxaa laga yaabaa in muddo badan uu sii haro marka akhriska iyo weliba akhriska la yidhahdo xisnaqdiga ama naqdinta loo yaqaano ee critical readingka la yidhaahdo in la akhriyo waa mid muhiima qofku wixii uu akhriyo yacnihii uu review ka sameeyo oo gorfeeyo oo khasaarihiisii iyo faa'iidadiisii iyo wuxuu ku diidan yahay wuxuu ku raacsan yahay labadaba uu sheega waa mid muhiima dhalinyarada wax akhriyaan leh daawadayaal waxaan ku wada jiraa barnaamijka dhalinyarada toddobaadkan marti noogu yahay cabdirasaaq sandheere bal waxaynu barnaamijkeenu sii wadan doonaa cabdirasaaqow haddaan su-aalaha aynu kusii soconno xalka miya qaabka qofku wuxuu akhriyi karaa bal qaabka qofku wuxuu akhriyi karo hal iyo laba nooga warbixi isaga marka la yidhaahdo akhriska iyo qaabka uu qofku u akhri karo waxaa jira qaabab kala duwan oo qofku u akhri karo intaanan qaababka kale horta wax ka horeysiinayaa qofku yacnihii qaab noocyo ayuu kula qabsan karaa inuu wax akhriyo qofku waxaa la yidhaahdaa qaabab kala duwan buu akhriska isku bari karaa qaababka qofku akhriska isku bari karo waxaa ka mid a qofku inuu ku biiro dad wax akhriya yani dad wax akhriya inuu asxaab ka dhigto kulamadooda iyo meelahay iskugu yimaadaana inuu ka agdhowaado waxaa loo yaqaano carabta waxay tiraa qiraa'atu ljamaaciya qofku inuu sameeyo waxaa loo yaqaano alqiraa'atu majmuuca yani dadka waxa wada akhriyay inuu jimciye khamiistoo kale inta badan la sameeya ama maalmaha fasax oo kale ama habeenadii oo kale qofku inuu tago uu qayb ka noqdo waxaa laga yaabaa qofkii si fudud markaa inuu qayb uga noqdo oo akhriskii kula qabsado qodobka labaad qofku markuu doonayo inuu wax akhriyo oo uu doonayo inuu la qabsado weliba caado uu dhiso waa inuu wax yaroo kooban ka bilaabo tusaale ahaan haddana maanta buuggaa soo qaado oon isku dayo buuggaa inaan saacad ku dhameeyo ama 2 saacadood ama aan yani kala bar gaarsiiyo akhriska inaan ku cusubahay waxaa laga yaabaa in markaan kala bar wado maanta akhriyo beri inaan kusoo noqon karo in akhriskiiba naco waayo waqti badan buu iga qaatay arrimo badan wax qabsan lahaa baa laga yaabaa in iga mashquuliyey kadibna yani niyad ahaan ee markaa shaygii u nacaya laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid tusaale ahaan buugga markaan soo qaato maanta inaan ka akhriyo 5 biij oo keliya bas aan iska dhigo berina 5 biij oo kale aan ka akhriyo waxaa laga yaabaa 5 biij intaan ku akhriyo waa 5 daqiiqo hadduu kasii badalo qofku 10 daqiiqo oo 10 biij ku akhriyo haddii kale 15 daqiiqo ku akhriyo 15 biij markaa qof markuu akhriska yaryaraysto si fudud buu kula qabsan karaa qodobka ku xiga waxaa ka mid ah qof markuu doonayo akhriska inuu la qabsado inuu yacnihii ka bilaabo buugta fudfudud waxaa jira buugta kala duwan yihiin waxaa laga yaabaa dadkii markay iskuulka dhiganayaan jaamacada dhiganaya ama qof markuu akhriska guud ku jiro waxaa jirta mawduucyo qofku uu xiiseeyo waxaa jirta maadooyin qofku uu xiiseeyo waxaa jira maadooyin qofku uu necab yahay haddii imtixaanadooda uu hooseeyo ama inta badan uu ka wareegeysto ama uu isku dayo markaa inuu qaab kale u xaliyo marka kuwaasoo kale aanad jeclayn isku dayay inaad akhride waxaad isku dayda inaad ka bilowdo kuwa fudfudeed jeceshahay aad iska leedahay yani waad kula qabsan kartaa ama adigu aad xiisaynayso haddaad akhridan aanad ka xiisa goyneyn tonaad waxaad kusooyinka jeceshahay haddaad jeceshahay mataqaanay sheekooyinkii waxyaabaha la midka inaad ku akhrido intaa marka laga yimaado waxa weeyaan bal qaabkii wax loo akhriyi lahaa qaabka wuxuu akhriyaysaa wuxuu noqonayaa dadkeenu qaabo kala duwan ba wuxuu akhriyaan horta waxaa la yidhahdaa qofku markuu haduu doonayo inuu wax akhriyo waa inuu fadhiisto meel ku habboon akhriska hadduu doonayo qofku inuu wax akhriyo waa inuu fadhiisto tusaale ahaan goob kuraasi taallo oo kale hadduu kuraasi jecel yahay fadhi yaallaan oo kale sariir taallo oo kale yacnihii qof meel jecel yahay ku tiirsan kara horta inuu fadhiisto ama meel isagu ku habboon oo doonayo inuu ku akhriyo
laakiin qofka hadduu isagoo jiifa tusaale waqti ka warno beerka u jiifa hadduu bugsaas ku qabto goor soo sariirtii beerka u jiifa yani qaabkii qofku wuxuu akhriyay kuma habboona qodobka labaad qofku markuu doonayo wuxuu akhriyo waa inuu waqti cayiman u samaysto tusaale ahaan maanta caawa waxaan akhriyaa 8 ilaa 9 saacad aan akhriyaa 8 ilaa 9 akhriyaa yani waqti cayiman qofku inuu yeesho oo maalintii ama habeenkii uu ku akhriyo hadduu ka boodo maalintaana yani waqti cayiman oo kale uu akhriyo qodobka ku xiga qofku waxa la yiraahdaa in uu yani almakaan almunaasib alwaqt almunaasib iyo waxay ma jirtay oo kale qofku inuu yani waqti ku habboon inuu akhriyo tusaale ahaan dadka qaarkood waxay akhriyaan salaada subax dadka qaarkood waxay akhriyaan galabtii dadka qaarkoodna habeenkii bay akhriyaan yani qofku waqti ku habboon inuu akhriyo karo waqtiyada ugu habboon waxaa ka mid ah salaada subax oo kale waa caadi duhurka marka laga baxo oo kale dad baa akhriya casarkii oo kale habeenkii oo kale marka si qaab baa akhriya marka qofku inuu waqti ku habboon lafteeda akhriyo waa mid muhiim ah waqtiyada ugu habboon waxaan ka xusi karnaa salaada subax oo kale waqtiyada markuu salaada subax qofku tukado ilaa inta shaqada tegin ama uu waxbarashada tegin ugu habboon qofku si fiican u akhri karo marka inaasan isleeyahay qofku yani waa qaab u noqon karaa inuu kula qabsado akhriskii oo si fudud markaa uu ku noqdo way su'aal xalka dadkan waxba akhriyin maxaa xal u ah cabdirasaaq xalku waxa weeyaan yani qofkan waxba akhriyin waxa leeyahay yani wax akhri waayo haddii aad waxba akhriyin waa laga tagayaa waad ambanaysaa waayo waxa laga yaabaa dad sanad ku dambeeyay waxba akhriyin buug kala furay maanta waxba la soconiba halkii aad joogtay meel aan ahayn yani in la jooga laga yaaba marka qofka aan akhriyin waxa leeyahay xalka ugu dhow wax weeyaan inaad buug soo qaadato oo aad wax akhrido qaababka aan soo sheegnay inaad qoraalkii akhriskii kula qabsato adoo markaa isku daya wax fudud inaad ka bilowdo dawadayaal intaasi waxaa inoogu eeg barnaamijka dhalinyarada aanu toddobaadkan kusoo qaadanay akhriska iyo faa'iidada uu leeyahay dadka wax akhriya toddobaadkan barnaamijka waxaa inoogu marti ahaa cabdirasaaq sandheere oo ka mid ah dhalinyarta firfircoon ee ku nool somaliland cabdirasaaq aad baad mahadsan tahay inaad barnaamijka nagala soo qaadato